meesha uu ku dhashay magnetar waxay sii qotoomisay sirta asalkeeda. duleedka jidka caano, mid ka mid ah noocyada xiddigaha naadirka ah ee galaxyada ayaa hadda noqday mid aad uga qarsoon sidii hore. cirbixiyayaashu waxay isticmaaleen telescopes Hubble iyo Gaia si ay u daraaseeyaan agagaarka skir eber 5 eber hal 456 oo ah nooc ka mid ah xiddigaha neutronka ee loo yaqaan magnetar. baaritaanku wuxuu daaha ka qaaday inaan weli fikrad cad ka hayn sida magnetarsku u samaysan yahay. hoggaanka aan u malaynaynay inaan ku hayno habka dhalashadooda gebi ahaanba lama xidhiidho skir eber 5 eber hal 456. si kastaba ha ahaatee, waxaa cilmi baarayaashu sameeyeen, ama halkii ma helin, waxay soo jeedinayaan in laga yaabo inaan ku khaldanay sida aan u malaynay in magnetars ay ku yimaadeen. xiddigaha neutronku waxa ay ka mid yihiin shayada ugu cufan ee koonkan. waxaa lagu garaacay godad madow oo keliya, waxaanay u samaysmaan si la mid ah. marka xiddig weyni uu ka dhammaado shidaalka si uu ugu dhex milmo xudunta udubdhexaadka ah, udubdhexaadkeedu iskuma taageeri karo cadaadiska dibadda ee fiyuuska, oo ku dul burbura cufjiid dhacdo rabshado ah, oo loo yaqaano tore oo labse supernova. magnetarku waa wax la mid ah, oo leh kala duwanaansho dheeraad ah. goobta birlabeedka ee magnetarka waa kan ugu awooda badan ee loo yaqaan caalamka, ku dhowaad 1000 jeer ayaa ka awood badan garoonka magnetic-starka caadiga ah ee neutronka, iyo jeer quadrillion ka awood badan dhulka. ma cadda sida magnetarsku u samaysan yahay, laakiin sababtoo ah waa noocyo ka mid ah xiddigaha neutronka, cirbixiyayaashu waxay u maleeyeen inay ka samaysan yihiin supernova duurbursan sidoo kale. skir eber 5 eber hal 456 waxay u muuqatay inay tani caddayn u tahay. marka xiddigaha waaweyni ay tagaan supernova, caddayntu waxay soo taagan tahay in muddo ah kadib qaab haraadi supernova ah. skir eber 5 eber hal 456 booskiisu aad buu ugu dhow yahay hadhaagii supernova ee loo yaqaan ab9. intaa waxaa dheer, ma jiraan xiddigo kale oo neutron ah oo laga helay agagaarka ab9. sidaa darteed xiddigiyayaashu waxay u maleeyeen in labada shay ay xiriir leeyihiin, taas oo run ahaantii ah male quruxsan oo cadaalad ah. hadda, isku darka indha-indhaynta telescopeka Hubble Space iyo hawshii Gaia ee dhowaan ka fariisatay ayaa shaki weyn gelisay malo awaalkan. meesha uu ku dhashay magnetar waxay sii qotoomisay sirta asalkeeda. Gaia waxa ay ahayd telescope hawada sare ah oo hawshiisu ahayd inuu si sax ah u khariidadeeyo walxaha ku dhex jira galaxyada Milky Way iyada oo la isticmaalayo cabbiraadyo isbarbardhig sax ah oo ay ku jiraan boosas 3 cabbir ah iyo dhaqdhaqaaqyo habboon. sawirada Hubble ee la qaaday iyadoo la adeegsanayo xogta Gaia oo ah qaab tixraaceed ayaa u suurtageliyey koox cilmi baaris ah oo uu hogaaminayo irbixiyeen Ashley Trimes oo ka tirsan wakaaladda hawada Yurub inay si aad ah u sawirto dhaqdhaqaaqa skir eber 5 eber hal 456 ee irka. xawaaraha iyo dhaqdhaqaaqa saxda ah ee magnetarku waxay ahaayeen kuwo aan sinaba loola xiriirin karin ab9. intaa waxaa dheer, ma jiraan hadhaagii supernova ee u dhow oo la xiriiri kara skir eber 5 eber hal 456. tani waxay la macno noqon kartaa dhowr waxyaalood midkood. midda koowaad waa in magnetarka oo loo malaynayo inuu jiro ku dhowaad 2 eber oo sano, runtii aad ayuu u daweyn yahay, daweyn oo ku filan in haraaga supernova ee xiriirka la leh ay burburaan. dhibaatada tan ayaa ah in magnetars loo malaynayo inay yihiin weji ku meel gaar ah nolosha xiddigta neutronka, oo soconaya dhowr tobanaan kun oo sano ka hor intaysan dejin jiritaan dheeraad ah. xulashada kale ayaa ah in skir eber 5 eber hal 456 aysan ku samaynin supernova duurburburka, laakiin iskudarka nooc ka mid ah. tani waxay ku lug yeelan kartaa laba xiddigood oo neutron ah oo aad u hooseeya oo isku dhaca, ama waxa ay noqon kartaa shay kale, dhogor cad. taasi waa tallaabo ka soo degtay xiddigaha neutronka ee miisaanka cufnaanta, shay ka samaysma xudunta burburtay ee xiddigta hoose, halkii ay ka ahaan lahayd mid weyn. dwarfyada cadcad waxay caadi ahaan leeyihiin saaxiibo laba geesood ah kuwaas oo ay ka soo baxaan tiro badan. haddii dhogor cadi uu kor u kaco cufka aad u badan, waxa uu noqdaa mid aan degganayn. sida caadiga ah, dhacdadani waxay keentaa inay shido fal-celinta nukliyeerka iyo irifka cad oo qarxaya oo aan waxba ka tagin, ayuu sharaxay irbixiyeen Andrew Leffan oo ka tirsan jaamacadda Radboud ee Netherland iyo jaamacadda Warwick ee laakiin waxaa la aaminsan yahay in shuruudo gaar ah ay ku jiraan. dhogorta cadcad waxay ku dhici kartaa xiddigta neutronka. waxaan u malaynaynaa in tani ay noqon karto sida skir eber 5 eber hal ku dhashay. way adag tahay in la qiyaaso runtii. si kastaba ha ahaatee, waxa u muuqda mid cad. si kastaba ha ahaatee, waa in supernova xudunta u burburtay ay hadda tahay sharaxaadda ugu yar ee samaynta magnetarka, taasoo ka dhigaysa skir eber 5 eber hal 456 musharaxa ugu fiican ee ka yar 3 eber magnetars ee waddada caanaha ee dariiqa samaynta aan xudunta u burburin. taasina waa cajiib.
heerka dhalashada magnetar iyo xaaladaha samaynta ayaa ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee tamarta sare leh, ayay tiri erbixiyeen Nandarea oo ka tirsan marxadka sayniska hawada ee Spain, oo saamayn ku leh qaar badan oo ka mid ah dhacdooyinka kumeel gaarka ah ee ugu awooda badan caalamka, sida gamarayga, supernovae superluminous, iyo raadiyaha degdega ah.